السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وين سلامي ومعنا العقال وحن ربا دولة المطرح كسو قدبيو نامس ير وكسو بسن dadka maamulka ah ama shirkadaha maamuleen ama iskuulaha maamuleen ama jaamacadaha maamuleen ama qof kasta oo shaqo hoos timaado aragta barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay horta marka ugu horeysa si guud ayaa shaqaalaha dalka dadka dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan ama guud ahaan Afrika oo dhan ayaa shaqaaluhu waxay kuwa oo maxaa la yiraahdaa shaqadooda aad iyo aad u adag tahay waqti badan ayaa shaqooyinka badan la shaqeeyaa waxa ku baxa qarash ahaan aad ay u yaryihiin maamulka markii loo yimaado markii shaqo la rabo in la qabto waxa dhaca waxyaabo badan oo shaqadii habkii ay u socon lahayd ama maamulka dadka ay ugu talagaleen in u socoto ka hor imaanay waxyaabaha xataa waxa kamid ah in sharci la jabiyo xataa qof inaad tiraahdo intaas shaqee waqtiga shaqada ugu badan taxta imaan waayo waxyaabo badan ayaa iska dhici kara marka maamulka waxaan rabaa dilaha dhowr qodob aan soo jeediyo qodobka koowaad waa naqaanaa qofkii shaqadiisa gaba ama shaqadiisa wax si ka noqdaan si loo dhaliilo oo dhaliil lagu soo jeediyo aan u niraahno shaqadaadii waxaas iyo waxaas ayaa ka hadlaysa waa naqaanaa si loo yiraahdo midda aan rabo inaan baraarujiyo aan dadkan fahansiiyo maamulayaasha waxaa weeye intaadan qofkan dhaliilihiisa aad tusin ma tustay waxyaabo uu ku wanaagsan yahay tusaalahan qofku waxa jirta maalmo uu fiican ku jiro qofka maalmo ay asaga maxaa la yiraahdaa ay maalmihiisii tahay oo qofku shaqada uu kala wado qofka maalmahaas ma ku dhiirigelisay ma tiri hebel maanta shaqo fiican baa qabatay maalmahan hawl fiican baad wadaa hawl cusub oo aan horena kaga baran ayaa soo kordhisay fadlan kuwa kale cusub ku dar haddaad kuwa kale cusub soo kordhinaysiina annagana soo marsi aan isla aragno hawsha awadina hawl aan ku jir kaaga mahadcelinayno ama marintaan adaa iskale hawl fiican baad qabatay ma ku niraahnaa inta aanan qofka waxyaabaha yararka ee dhaliisha ah uu markuu waxyaabo yaryar uu qaldo intaan dhaliisha usoo gudbinin inta faa'iido leh u sheegno taas waa qodob qodobka labaad wuxuu noqonayaa qofkan haddii uu qalad sameeyo haddii aan rabno inaan wax u sheegno xilliga aan rabno inaan u sheegno ma yahay xilli munaasab ah ma xilli la rabo in shaqooyinka hadda la galaan rabno inaan qofkii wax u sheegno ma xilli qofkii shaqadii laga soo rawaxay ayaan u sheegayaa ma xilli kaloo nasiinaha oo khamiis iyo jimco ayaan qofkii rabaa inaan barnaamijka u sheego xilli noocee ku habboon ayaan qofkan barnaamijkan u sheegi karaa marna ma isweydiis marna baarta midda kale waxaa tahay fariinta qaabka aad rabtid inaad gudbisid ma jiraa qaab kale oo ku habboon oo qofkan aad u gaarsiin kartid dabcan adiga oo qofkan raba inaad dhaliishiisi tustid hab kale oo ka wanaagsan oo dhaliishiisina qofkan uu ku arki karo asaguna isku garan karo ma jirtaa oo aad ku gudbin kartid mise waxaa rabnaa inaan isla markiiba aan idhaahno hebel waxaasaa qalada oo qofka wejiga wixii laga saaro sheeko yar in la wadaago shirkad maxaa la yiraahdaa waa taqaanaa shirkad wax soo saarta oo matooro iyo ka daaran yihiin ayaa derbi kasta meel kasta maadaama meesha shirkadii ay matooro ka daaran yihiin ayaa derbi kasta waxaa lagu qoray meeshaan looma ogola in sigaarka lagu cabo ilaan sigaarkii waa dab wixiina waa matooro iyo gaas ninkii shirkadda u sarreeyey ayaa maanta dambe wax u soo galay koox ilaa 5 injineer kamid dadkii shirkadda injineeradii waday oo sigaar ku cabahaya matoor meel matoor korkiisa derbiga meesha ay ku jiraan oo matoorka uu ku jira sigaar ku cabahayaan 4 gees mid walba warqad baa uga qoran mid walba warqad baa ku dhagan ay ku qoran tahay meeshaan sigaar looma ogola in lagu cabo maxaa samaynayd maamulkiilu sigaar looma ogola cudurdaar ma haystaan oo ma dhihi karaan waa hilmaan oo iridooda ka soo horjeeda waxa ku qoran sigaar looma ogola waa dadkii shirkadda injineerada u ah qaab xataa la sameeyo wuxuu sameeyay ninkan markuu arkay raggan ayuu sigaar ku cabay ma qaylin mana buuqin wala sheekaystay ayuu sigaarkooda hawsha iska cabay iska dhamaystay hawsha markuu u dhameeyay sheekada u dhameeyay uu baxay dukaanka u soo horeeyay tagay baakad sigaar soo gaday ayagu meesha fadhiyo ugu soo laabtay baalkii motorkii jooga wuxuu ku yiri waxaan rabi lahaa jeclaan lahaa inaad baakadan sigaarka qaadatiin ee banaanka ku soo cabtiin
وفرين ضدبن meeshaan sigaarka ha ku cabinina akhyaari marka fariintaas noo ka faa'iideysanayna waxaan isku daynaa haduu ilaahay inaanu dadka naga noo shaqaalaha ee maamulka aan u nahay iyagoo awal taagnaa yaa Allah ku shaqeynay inay hadallada iyo waxyaabaha u soo gudbeenna dhaliish inaysan sababin in qofka shaqadii uu iskaga tago soo dhawaada. Assalaamu calaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.